madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu xil ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Xagar Dabageed waxa uu xilka u dhiibay Maxamed Caraale wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana akhrinayay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro idin aqrino wareegtadaas oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Hirshabelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare wareegtadaas oo ah mid xilka qaadis ah iyo magacaabid waxaana xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan mudane Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed waxaana xilkaasi loogu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan inuu noqdo mudane Cali Maxamed Caraale haddaba waxaan idin aqrinayaa wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Hirshabelle oo u qoran sida tan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowlad goboleedka Hirshabelle xafiiska madaxweynaha 8 bisha 6 2019 wareegta madaxweyne ujeedo xilka qaadis iyo magacaabid madaxweynaha dowladda Hirshabelle markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle markuu arkay muhiimadda ay u leedahay bulshada reer Hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle dib u habeynta hoggaanka maamulka gobolka Hiiraan si loo taabageliyo waxqabad dhab ah horumar iyo daadejinta maamul wanaagga ka hirgalo gobolka markuu tixgeliyay baahida loo qabo in la sameeyo isbedel loona magacaabo gobolka Hiiraan gudoomiye governor waayo aragnimo iyo aqoon leh isla markaasina la filayo in gobolka isbedel horumar leh ka hirgaliyo wuxuu xeeriyay waxa xilka gudoomiyaha gobolka Hiiraan laga qaaday Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed iyadoo mudane Cali Maxamed Caraale loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle xeerkan waxa uu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare waa uu saxiixay oo wareegtadan sidaas ayuu Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakimaan Star TV Jawar